كومبانيga Haas Petroleum uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu daba socdaa shir jaraa'id oo maanta uu qabtay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi shirkaas oo uu waxyaabaha uu kaga hadlayay uu ku soo qaaday shirkadda Haas kuna eedeeyay jariimad runtii mujtamaca reer Somaliland iyo dhammaan Soomaali meel joogtaba ay la yaabtay oo shirkaddan runtii ama kaab ku noqday anoo ku hadlaya marka hore magaca shirkadda Haas Petroleum ahna madaxa guud ee ugu sareeya shirkadda Somaliland waxaan bulshada reer Somaliland u cadeynaya in ay tahay warka wasiirku sheegay inay ahayd jariimad ka dhan ah shirkadda Haas Petroleum ayna ahayd duulaan qaawan oo wasiirku uu ku qaaday shirkadda iyo ganacsiga iyo guud ahaanba dadka kombaniyada waaweyn ee dalkan wax ku oolka u ah waxaan meesha ka saaraya oo aan tirtiraya in ay haba yaraatee wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay una ku eedeeyay shirkadda in magaalada Buuhoodle oo aanan anigu shakhsiyan waligay arag meel ku taalo shirkadda iyaduna wax xafiisa iyo wax shaqaalaha midna ku lahayn in ay dhibaatooyin ka jireen in shirkaddu ku leedahay arinta marka hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi inay tahay mid diplomats oo ah wasiirka oo ah u hadlayay yani inuu masuul yahay oo qarankan ka mid yahay arinta iyada ah inuu runtii uu si aan gabasho lahayn ugu bareeray shirkadda waxa uu kula kacay ficilka iyo meesha aanu u mari doono dhammaan mujtamaca reer Somaliland ee sharafta leh iyo dhammaan dadka ay dhageysanaya Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan u cadeeyo si xayndaab adag loogu dhigo shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan maalgashadayaasha dalka ee aan mar dambe ciyaar isaga dhicin in arintan shirkadu ay u mari doonto xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaala in wasiirku uu qaadi doono responsibility-ga waxa uu ku hadlay iyadoo aan u marino maxkamadaha dalka iyo xeerarka dalka u yaala haddii uu cadeyn waayo laga rabo isaga in ay uu jawaab ka bixiyo ama in wasiirku uu keeno cadeyn u qalanta oo shirkadu ay noqoto taqaadar responsibility-ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay eedamaha noocanihi waa eedeymo dadyowga iyo kombaniyada waaweyn mararka qaar ay wajahaan iyadoo ay salka ku hayso waxyaabo gaar ah oo aad u hooseeyo aan rabin halkan inaan ka sheego maanta laakiin waxaan rabaa ummadda Somaliland oo shirkadda Haas Petroleum aqoon fiican u leh oo shirkaddani ay tahay shirkaddii caanka ku ahayd maalgashiga dalkan oo ay tahay shirkadda shaqo abuurka iyo dalkan kaliya ee la majeerto marka laga hadlayo dhinacyada ay ka shaqeyso runtii in ay tahay duulaan aan ilaa iyo iminka aan ka hor dhacayn ilaa wasiirku uu cadeynta uu sheegay ee uu shirkadda ku eedeeyay inuu keeno wasiirku wuxuu ka sheegay warbaahinta mar la weydiiyay inuu cadeynhayo wuxuu sheegay inuusan wax cadeynahayn laakiin uu rabo inuu shirkadda eedeeyo dhammaan dadka reer Somaliland hadda wadeen clipkaas ereygaas annagoo daba soconna waxaan xeerbeytiga iyo intellectualka iyo ganacsatada iyo qaranka dawladda cid walba waxaan ka codsanaynaa in waxyaabahan oo kale inay tahay wax aan runtii aan laga sariigan karin oo aan la aqbali karin in markaa ama ay wasiirka raacdo oo hadcad wasiirku uu qaado mas'uuliyadeeda bulshada reer Somaliland ay aragto iyada oo wasiirku uu wajahay wixii uu nagu eedeeyay oo nagu waayay ama in shirkadda Haas Petroleum ay qaato waa meel ka dhac waa wax aan laga baaraan degin waa wax aan u malaynayo runtii inay u tahay dan oo ay xilli loo baahnaa timid in shakhsiyaad u malaynaya in mararka qaarkood iyo xilliyada qaarkood waxyaabaha noocan oo kale ah ay cid kaga raali noqon karto inaanay ahayn wax lagu dhumaalaysan karayo runtii aad baan uga xunnahay mujtamaca reer Somaliland ee sharafta badanna iyagana waxaan hubaa inay ku filan yihiin jawaabta wasiirka sababtoo ah shirkaddan waa la yaqaanaa anigana dalkan iyo qarankan iyo dadkan iskuma aanu baran inaan shirkadda Haas kaliya aan masuul oo ka shaqeeyo waxaan isku baranay shaqo kala duwan waxaan isku baranay dhaqan walba oo wanaagsan iyo nabad iyo bulshooyinka iska daa Somaliland in bili aadamka basharka ilaahay abuuray uu nabad iyo xurmo iyo koboc
dhaqaale iyo mid dadeed iyo aqoon bulshooyinku ay ku koraan oo u baahan yihiin in lagu taageero. taasayna haas ka shaqaysaa, taasayna haas u taagan tahay. haas waxay caan ku tahay bixinta iyo taakulaynta dadka danyarta, waxay caan ku tahay bixinta iyo kharashaadka ardayda aan haysan fiiga ee meel walba jooga, waxay caan ku tahay isu taagista akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee nabadgelyadu ay kow ka tahay. taas ayaana bulshadu ay ka tahay markhaati naguna taqaanaa. aad iyo aad baan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad mahadsan tahay. jawaabtu way kooban tahay. cadaaladda rajada aanu ku qabnaa waa 100% ma aha 90%.